på. Snart så ska det bli tekniken kommer på plats och då ska vi fortsätta med att höra på livshistorien av andra kvinnor och vad de har upplevt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan Soomaaliya farsamada xoogaa yar kala qaloocatay marka farsamada intii laga hagaajinayo insha Allah taala waan ku noqon doonaa dumar badan ayaa meesha isugu yimid oo kuways yaqaan kuwan is aqoonin kuwa noloshu walaalaysay kuwa taariikh wadaaga marka caawadan iyadoo la isla jooga haddana fursad kale la isu helay markii farsamada xoogaa halawday oo la isku bururo marka caawa halkan waxa loo joogaa oo la isugu yimid ayaa waxay tahay qof maxaa la dhahaa indho isu fiiqida la dhihi karaa qofka kaleeto si walaalka ah noloshiisa in aad maaragtay eegtid wixii ka anfacana aad ka qaadatid iyo in maaragtay loo taliyo oo fikirka ah dad kale baa wax ka taliya fikirka ah dumar haday tahay amarka ayaa ku gaaray yaa go'aanka ku wixii yaa meel heblo ku diray yaa meesha saas yeelay marka ulajeedadu waxay tahay nafsadaada maalinta qaan gaarto ilaahay ka sokow adiga ka masuula hadaa tahay qof haween ah waalidka iyo ehelkaaga xushmad iyo tixgelin iyo abaal aad u haysid baa idin ka dhaxeeya sababtoo ah hadaad aragto noloshaada oo hagaagtay wanaag adiga oo maaragtay dhalinyarnimo ku soo dhameystay wax barasho inaad heshay damiirkaaga damqanaya in maaragtay tababar wanaagsan lagu soo siiyay intaasata waxa mas'uulka awaaridkii iyo walaalkii ku soo tababaray mujtamacii ku soo abaabiyay abaal baad uga haysaa laakiin kuguma adoomin karaan adiguna inaad isugu adoomiso ma aha marka ulajeedadu waxay ku socotaa maskaxdaada xoray adoonsiga lagu sheegayo wuxuu yahay dadku marka adoonsi la sheego waxay dhahay hey gumaysi qofka gumaysanaysa malaha ninkii cadaawa hor u tagay gumaysiga adduunka ugu xun oo samayn karto waa midka adigu aad isku samayso waa midka adoo sariirtaada jiifa adigoo jikadaada jooga adigoo kaliga isla jooga oo isla faqaaya ku yiraahda maya ma samayn kartid maya ma awoodid maya ma lagu ogolo erayadaas oo dhan maskaxdaada ka guuxaya waa inaad wax ka qabataa farsamadii baa noola hagaajiyay marka waxaan jeclahay barnaamijkii baan dib ugu noqonaynaa Aamir Cabdikariin aad baad u mahadsan tahay qabrigayga ilama galaysid ha asturnaana wax iga maqan oo ilaahay abuurto malaha wal waxaad sheegtaa waxa maqan adigu is astur waxa ka horeysa adigu qalbigaaga wanaaji adigu haday ku dhibayso ka jeeso oo indhahaaga u tali jirkan igu yaala ilaahay baa isiiyay anaana ka wakiil ah aakhiradiisana Allah ka wakiil ah marka shaqo aad ku leedahay malaha hadaan qowlkaygu ku deeqin isaga bax meesha aad baad u mahadsantahay Berbe kusih tahay, life patah. You know, ada yang aku sesuatu. Hoga yer waxaan dhahay laka darta waxaad u egtaa inaad meesha atoora ka tahay. Shay wax lihiin horta. Weli nervous ahay. No, uma ekid laakiin. Ada mooda kaliya. Yeah, mo ek laakiin ma ahay wala. Sababta hadaa tahay way ka muuqan lahayd. Okay, well what's good day ayna. Thank you. You're welcome. absolute xaaska badhi waad ku mahadsan tahay been ma aha waxa jira walaalo badan rag iyo dumar ah
oo maskaxdooda ay ku qafilan tahay dumarka ragga ka wakiil ah waxaad arkaysaa nin ajnabi ka ah Soomaalinimada idinka dhaxaysa laakiin ajnabi ka ah baa jidka intuu yimaado rabaa inuu ku taliyo ninka cadaanka ay asiga maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin in jinsiyad naga dhaxayso in walaaltinimo qarannimo naga dhaxayso laakiin waa iga ajnabi markaasuu rabaa inuu ii taliyo sidee ajnabi aniga iigu taliya muhiimadda waxay tahay qofku inay ogaato mas'uuliyadda ayada saaran heerka ay la eg tahay yaa mas'uul ka tahay aabbahay ma tihid walaalkay ma tihid odaygayna ma tihid nin Soomaaliyeed ahaan mas'uul igagama tihid qaranka Soomaaliyeed haddaad matalaysidna shacabkan ka mid ah mas'uulaad iga tahay haddaad aabbahay tahay ama maaragta walaalkay tahay ama odaygayga tahay familkayga baa tahay oo mas'uul baad iga tahay laakiin inta kale xushmad iyo qarannimo iyo dadnimo naga dhaxaysa marka waxa loo baahan yahay waxay tahay in aad ogaatid doorkaagu muxuu yahay ama ha noqoto mas'uuliyad ama ha noqoto waxa qabanaysid ama ha noqoto waxa rabtid inaad baratid ama ha noqoto suuqa wax ku gadaysid suuqa hadaad tagtid xataa waxa laga yaabaa doorkaagu inuu noqdo in adiga caana gadid qof kalena waxa laga yaabaa inuu noqdo in dhar gado marka qof walba waa inay ogaato doorkaygu muxuu yahay maxaa waajib igu ah maxaa xaq la igu leeyahay laakiin inaad soo istaagto oo waajib waxa kugu ah aniga mas'uul ka ah aniga aawa xaqi aan adiga kugu lahaa haween ahaan mujtamacan ka tirsanaya hadaa dawlad matalaysa xaqan kugu lahaa aawa aadanimo bini aadanimada xaqi aan kugu lahaa aawa in aad xaq dhowrto ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinta oo soo dejiyay ee nagu manaysta ilaaha uga mahadnaqay inaan muslim ahay in cilmi ilaahay isiiyay oo aan qofna igu takoori karin taasaa marka waxay keenaysaa maalintii 15 aan gaaray wiilka Soomaaliyeedna uu 15 sano gaaray labadeennaba mas'uuliyadeeni annagay nagu wareegtay ilaahay ka sokow dambigii aan galnana aakhira annaga noola qabsanaya ayadoo marka ay saas tahay aniga adiga miisaanka aakhirana wada sugaayo sideed isugu daydaa inaad marka runta aan soo sheegno aan kala cabsashada maaha aan isxushmayno aan kala dambayno aan istixgelino aan istaageerno aan wax isweydiino aan doodno laakiin waxaan la yiraahdo caburinta ha laga baxo gabar iyo wiil saa u dhantahana maskaxda ka xorow gumaysiga waa codka dhawaaqa maskaxdaada ku dhex jira gumaysi ka xun ma laha markaad halkaa ka xorowdo oo nafsadaada xorayso adduunka horumar baa gaaraysaa aakhirana horumar ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadduu kuu ka soo waad gaaraysaa marka sheeka meesha ugu dhaafaysa inta adinka idin daldalmaayo qolo meeshan aan rabaa inaan ku biiro marka cafi saamax insha Allah ta'ala ninka uu dareyskayga dhibaya ama dharkayga uu dhibayna habeen wanaagsan isaga bax meesha kan ana iskala insha Allah ana wakiil ka ah gaari walba darawalkiisa la wareystaa marka jirkaan ana darawalka Ilaahay ka sokow waa maadsantiin
waa isu soo noqonaynaa markii barnaamijka uu bilowdo marka waan joojinayaa hadda My Facebook Live. Setihin. Assalamu alaikum. My name is Suad, aka Sumo. How you guys doing? I do events and loads of other stuff. Yeah. Hello. Bye. No, wait, bye Maha. No, I think it's Bye, Maha. No way. Bye. It can't be bye. You have to share what do you do? MashaAllah, your outfit's amazing. thank you. Yeah. MashaAllah. What do I do? Okay, I'm Suada Mahmood. I do quite a few things. I do events. I've started off in events. I do events like this. I bring Somali and Muslim women together. We're trying to integrate everybody. I also do hosting. So if any of you guys need me to host anything, look, I'm used to the mic. And I do presenting also. I also present sometimes on the Islam channel. So, MashaAllah. thank you. Go say hi. I'll get somebody else. Hi, welcome to Integration Talk to the TV. people. What's going on? A lot's going on. If you any lady, Somali lady, if you're not here, you missed out. So make sure you're here next But time. why the Somali ladies should be here? Why? You should be here because there's a lot of motivation, a lot of bringing Somali women out. We feel like we need to be out there and show people what we're all about. There's diversity, there's a lot going on. Make sure you're here next time. Talk to the people. Why we are here and why it's important to be here. It's very important to be here because our Somali women are crossing boundaries. We are the backbone of our country, and to come to find such a great, all Somali women from different walks of life is just amazing. Great women, may we be them, may we know them. And I will be back about 10 minutes, I think, after the break. And see you soon, inshallah ta'ala. Khair adin rajaynaya. Dhammaantiin wax yar kadib aan soo noqon doonaa. Waa mahadsantihiin.